Assalaamu calaykum. Muranka soo koraya ee wararka been abuurka ah, xogaha beenta ah iyo hadallada nacaybka ah ayaa ku qasbaya shirkadaha baraha bulshada sida Facebook, Twitter iyo Google inay qaadaan tallaabooyin ay si dhow kula soconayaan kuna qiimeynayaan macluumaadka la soo geliya barahooda internetka. Twitter ayaa muddo dheer wajahaysay cabasho ka dhan ah qaar ka mid ah dadka isticmaala oo sameeya inay ku celceliyaan tweets-ka wata fariimaha xadgudubyada ah iyo dhibaataynta ah. 2016 ay ahayd markii shirkadda sheegtay inay tirtirayaan tweets-ka wata erayo gaar ah. Waxay hormarisay qalab saacidaya in la soo wargeliyo tweets-ka wata erayada xadgudubka iyo dhibaatada ah. Sidoo kale waxay diyaarisay koox caawiyaal ah oo tababaran oo si dhaqso ah u dareemi kara tweets-ka wata erayada xadgudubka iyo dhibaatada ah. Facebook ayaa sidoo kale ku dhawaaqday inay joojin doonto website-yada soo saara maqaalada wargeysyada marin habaabinta ama been abuurka ah iyagoo isticmaalaya xayeysiinta Facebook. Tallaabadan ayaa ka timid bogga internetka ee bulshada iyadoo ka jawaabaysa walwalka sii kordhaya ku saabsan sheekooyinka been abuurka ah ee sida ballaaran u soo batay xilligii doorashada Mareykanka ee 2016. Wararkaas waxaa ka mid ahaa in Pope Francis uu taageeray Donald Trump, halka mid kale ay sheegaysay in mu'asasada Clinton Foundation ay $137 milyan ku qarash garaysay gadashada hub sharci darro ah. Waxaana markii dambe la xaqiijiyey in labadooduba aysan ahayn kuwo sax ah. Mark Zuckerberg oo si xoog leh u difaacay shirkadiisa dhaleecaynta kaga imaanaysa wararka been abuurka ah inay saameyn ku yeesheen doorashada Mareykanka. Maqaal dheer uu Facebook soo dhigay ayuu ku sheegay in ka yar 1% macluumaad la soo geliyay Facebook dunida daafaheeda lagu tilmaami karo inay yihiin been. Maamulayaasha shirkadda Facebook waxay ka walaacsan yihiin inay qaadaan tallaabooyin kaasoo ah in Facebook ka dhigi karta mid diidaya xorriyadda hadalka, taasoo keentay mucaarad badan. Shaqaalaha ayaa ku booriyay Facebook inay wax badan qabtaan si ay u tirtiraan qaladaadka, sida laga soo xigtay 2 qof oo xog ogaal u ah arrimahan. Maqaal ay faafisay Blogspot, xubin garabka midig ah oo aan si fiican loo aqoon ayaa si qalad ah u sheegay in Donald Trump uu ka guuleystay Hillary Clinton codka dadweynaha, taasoo ka dhigtay inuu noqdo ciwaanka ugu sarreeya Google qaybta raadinta. Google ayaa sidoo kale ku dhawaaqday inay mamnuucayso bogagga been abuurka ah ee isticmaalaya xayeysiiska, taasoo keenaysa inay waxyeello u geysato website-yada. Tallaabooyinka ay qaadayaan Facebook, Twitter iyo Google waxaa laga yaabaa inaysan si buuxda u raaligelin dareenka dadka isticmaala iyo kuwa naqdiya, laakiin waxay muujinayaan awoodda sii kordhaysa ee baraha bulshada iyadoo loo eegayo socodka macluumaadka iyo dhibaatooyinka ay wajahayaan shirkadaha tiknoolajiyadda. Waqtigan la joogo oo ah inay ka hortagaan in barahooda noqdaan meelaha lagu marin habaabiyo dadka iyadoo la faafreebayn xorriyadda hadalka. Sidaan ognahay, Soomaaliya waxay ku jirtaa wadamada si aadka u isticmaala social media, waxaana maalin walba aragnaa warar been abuur ah iyo kuwa nacayb ah. Adigan daawanaya videogan, xilli walba ma ku soo gaaraan warar been abuur ah oo aad ku aragto social media?